munaasabad casho sharaf oo isugu jirtay kala wadar qaadasho sidii loo taageeri lahaa dawladda cusub ee lagu waday in dhawaan lagu soo dhiso magaalada Muqdisho caasimadda waddanka Soomaaliya iyo soo dhaweyn ay u sameysay jaaliyadda Soomaalida magaalada Johannesburg ee dalkani Koonfur Afrika. Injineer Cabdiraxmaan Yariisow oo jagooyin kala duwan hore uga soo qabtay dawladda ku meel gaarka Soomaaliya haatan waqtigeedu dhamaaday. munaasabadan oo ka dhacday hotelka caalamiga ee Noor International magaalada Johannesburg ee dalkani Koonfur Afrika ayaa waxa ka soo qayb galay waxgarad aqoon-yahano culimo u diin arday ganacsato iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Johannesburg ee dalkani Koonfur Afrika. ugu horeyn ayaa waxa goobta ka hadlay Xaaji Muuse Gajab oo kamid ah ganacsatada dalkani Koonfur Afrika isagoona faahfaahin kooban ka bixiyay ujeedka munaasabadan ee ay jaaliyaddu u qabatay. waxa sharaf noo ah إن نقصد وينه إنجير عبد الرحمن عثمان يريسو المجال ده أنا أجلنا هاي إنتينو إذن جوهانسبرغ الزبادة أنا وحكي معها وحوي إن أنا كلا قاعدة نروح معلومات إن أنا اسمي دارس إنه أخويا الصعود وطن كوجرو nabadoon Xaaji Cabdi Weheliye ayaa isna ka hadlay goobta isagoona taariikh kooban ka bixiyay Injineer Yariisow si markaasi ay u bartaan qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkani Koonfur Afrika aan hore u aqoonin taariikhda injineerka. farxadda iyo soo dhaweynta injineerka inta la sheegay baan la qabaa waxaan rabaa wax yar inaad dib ugu laabto taariikhda injineerka 4 sano oo Soomaaliya uu joogay ka hor ay ururta siyaasadda ku jiray waxaan dhageysan jiray barnaamijyo debate oo dood ah oo ka qayb galay dalka Ingiriiska lagu qabanayo siyaasadda Ingiriiska iyo Yurub lagu adoorsayo hadda ka hor inuu ka qayb qaato. gabagabadii munaasabadan ayaa waxa isna goobta ka hadlay Injineer Cabdiraxmaan Yariisow isagoona ugu horeyn uga mahad celiyay jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Johannesburg soo dhaweyntii ay u sameysay kadibna warbixin kooban siiyay. kor waxaan u mahad celiyo qabanqaabiyaasha xafladdan quruxda badan runtii oo soo dhaweynta ah oo ku kala warqaadanayno isku wareysanayno runtii sharaf weyn bay tahay inaan idin la joogo halkan waxa inta si dheer oo runtii wax lama filaan noqotay Soomaalidu sideeda waa resilient meel walba ay tagaan waad aragtaan sida ay horumarka uga sameeyaan siiba qurbaha iyo dhamaan mar walba waxa la oran jiray Soomaalida maxay ugu wanaagsan yihiin dibadaha wadan gudihiisana aysan ugu fiicneen laakiin hadda waxa soo baxday in fursadda aysan jirin oo amni markii fursadaas amniga la helayna magaalada Muqdisho aad moodo ganacsatadii inay aad iyo aad maaragtay u soo laabteen si kastaba haatee jaaliyadda Soomaalida ee dalkani Koonfur Afrika ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay martigelinaysay mas'uuliyiin ka socday dawladda ku meel gaarka Soomaaliya tan intay dawladda ku meel gaarku ay xiriir diblomaasi ay wada saxiixdeen xukuumadda dalkani Koonfur Afrika. Cabdinaasir Soomane telefishinka caalamiga Universal TV Johannesburg.